السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا قاعد أفتح عشر كنا وعشر كلا بدن واحد لأنه بريمير برو عشر كمان تنا هنقص وقدام دونا هدول هاي له قاب كلاس وينبت كريه فيديو له in Premiere Pro أحد رقابة بدنا Premiere Pro كلاس وينبت كريه فيديو له وينا أركض دونا هدول هاي له قاب كودا يوحي هاي حتى يسا Project Window تيسا هالكن وماشي سكوينس بينو يلا Project Window مركات تكتو waxaad suubinaysaa right click aa leedahay meeshaan hoose and then waxaa imaanaysaa import markaad click garayso wuxuu ku geenayaa desktopka and then videoga aad doonaysaad click garaynaysaa and then open aa leedahay open markaad dhahdo wuxuu keenayaa halkan video waa qaab koowaad qaab kale wuxuu yahay in adoo joogto new project yaa double click garaynaysaa markaad double click garayso wuxuu ku geenayaa desktopka waa qaabka labaad qaabka saddexaad aad video ku soo input garan karto waxay ahayd tegaysaa halkan ay ku qoran tahay file ku dhufanaysaa then hoos soo degaysaa waxay imaanaysaa meeshaan ay ku qoran tahay import and then import marka dhalo isagana import ku ku geenayaa desktop ku geenayaa waa qaabka saddexaad ee loo soo input gareeyo qaabka afraad loo soo input gareeyo waxay ahayd tegaysaa desktop kaaga then waxaad raadinaysaa meesha video ku jiro and then soo drag garanaysaa waxaad keenaysaa Premiere Pro waliba waxaad keenaysaa meeshaan new project-ga and then waad sii deynaysaa okay sometimes waxaa dhacaa inaan video fara badan aan soo gelino meeshaan waa meesha videoyaasha aan gashano sidoo kale sequence aan soo gelinana meeshaan gelino weyaan okay waxaan doonaynaa in shaqadeena ay noqoto shaqo wanaagsan isku dabaridan ma doonayna inay noqoto shaqo lagu wareero sababtoo ah hadaad toban video soo geliso meeshaan dib ayay kugu noqonaysaa inaad mid ka daragto saacad la soo saacad so waxaan suubinaynaa foldero kala duwanayaan suubinaynaa on videoyaasha aan kala gelino haddaan doonayo inaan folder suubiyo waxaa jira laba qaab oo folder loo suubiyo loo create gareeyo qaabkooda wuxuu yahay halkan right click garanaysaa waxaad leedahay new pane and then new pane markaad dhahdo wuxuu ku siinayaa folder cusub so folderkan waxaan ku qoraynaa footage kan videoyaasha ayaan gashanaynaa haddii la yaado and then video baan imaanaynaa waan drag garaynaynaa waxaan ku drag garaynaynaa folder and then folder gudihiisu noo galaya and then waxaa jira qaabka labaad oo loo suubiyo pinka halkan aad imaanaysaa meeshaan waxaan ku qoran new pin and then right click garanaysaa markaad click garayso halkan wuxuu ku siinayaa folder waa qaabka labaad ee loo suubiyo folder loo create gareeyo waxaan ku qornaynaa kana sequence aan ku qornaynaa and then kan waxaan gashanaynaa sequence inta waxaa noogu jiro footage videoyaasha intana waxaa noogu jiro sequence videoyaashan gudahooda haddaan doonayna folder kale ka abuurna still waan kasii abuuri karnaa labada qayb waxaan abuuri karnaa new pin waan dhigi karnaa and then waa kana calaamada kale haddaan tusinayno ka abuuri kartaa folder kale haddii videoyaasha aad soo gelinaysa ay kala duwan yihiin so waxaan ujeedaa inay labadan folder aad iyo aad u weyn yihiin waxaa jiro qaab loo yareeyo mise meel laga yareeyo ayaa jiro meeshan waxaa waaye list view intan waxaa waaye icon view ayuu hadda noo jooga uu noo saaran yahay waad aragtaa uga weyn yihiin and then waxaad tegaysaa list view and then waxay noqonayaan ayagoo yaryar and then markaad furto waxaad ka arkaysaa videoyaasha kugu jiro okay hadda waxaan furaynaa footage ayaan furaynaa videoga noogu jiro aan double click garanaynaa wuxuu kasoo appear garanayaa source monitor ayuu kasoo appear garanayaa videogan ujeednaa and then videogan soo qaadaynaa waxaan keenaynaa timeline-ka aan sii deyno markaan sii deyno wuxuu ku siinayaa laba choice haddaad doonayso inaad ku match karayso settingka uu sequencega isticmaalayo haddaadan doonin so waxaan doonaynaa inaan ku match karayno sequencega settingkiisa waxaan leenahay change sequence setting okay uu noo soo galo videoga markuu videoga noo soo galo wuxuu kasoo muuqanayaa videoga program monitor ayuu kasoo muuqanayaa waa halkan waa plan garan karnaa and then videoga waan daawan karnaa halkaasaan ka daawan karnaa maanta casharkeena intaasuu noogu yahay casharkeenu ahaa sida videoga loogu soo input gareeyo Premiere Pro casharka ku xiga intaynu ka gaarayno waa anigoo aad iftaaxoodan leh sidaas iyo nabadgelyo haddii jiraan wax su'aalaad qabtaan waxaad igu soo qori kartaan commentiga saan idinkaga soo jawaabo waad mahadsantihiin waqtigiina iyo daawashada aad daawanaysaan mahadsanidin